waxaa aad ii cajabisay gabadh la ii sheegay qisadeeda waa qiso dhacday gabadh baa waxaa loo sheegay ninkaagu haweeney qarsoon buu qabaa haween baa u qarsoon way ogaatay wayna xaqiijisay inuu haweeney qarsoodi ku qabo markay ogaatay shib bay u tiri maba ayna la soo qaadin maba ayna dareensiininba hadhowba waxaa lagu yidhi naa waa lagula guursaday maxaa meesha ku dhigay haddaad arrinta ogaatay maad kacdidood masayrtido ugu yaraan maad waxoogaa ka daadsatid ya waxoogaa masayrtida xataa maad ka daadsatid gabadh caqli badan baa ahayd waxay tihi naa hadda haddaan boodboodo oon qaylqayliyo oo ninkii aan kuleetiga ku dhago oo berri la yidhaahdo waa jirtaa waanan qabaa waana xaaskaygii oo bannaanka ay u soo baxdo soo ma imaanayso uun laba mid inaan ninkii isweyno ooy naag dib ka timi ninkayga iga qaadato iyo in habeennada layla qaybsado soo labadaa mid imaan maayaan sidaas daraaddeed waxay tidhi habeenadeydao dhan anigu aan haysto isaguna meelaha hadhuudhuuntay tidhi maalinkii maxay yeeli hadduu meelaha dhuumaalaysan nin dhuumaalaysanahay ya gabadh aad u caqli badan bay ahayd cajab badan sidaas daraaddeed dabagalkan faraha badan iska daayo oo waxyaalaha nolosha qadhaadhayay ka mid tahay tuhmadii waswaaskii aan ka hadlaynay bay ka mid tahay wixii bannaanka u soo baxa wixii hawshiisu leeyahay laakiin wixii aan bannaanka imaanin dabagalka iyo tatabbuca iyo faraha isaga qaada wallahu aclam